nin 42 saacadood ku dhex xirnaa wiisha dhexdiisa isaga oo ka sheekeeyay wixii argagax lahaa ee ka dhex qabsaday intii uu halkaasi ku xirnaa. intaan ugu gudagalin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. nin ka soo jeeda koonfurta dalka India ayaa waxa uu 42 saacadood ku dhex xirnaa wiisha dhexdiisa kadib markii uu wiishkii halaabay. ninkan oo cisbitaalka ama dhakhtarka u socday ayaa waxa uu sheegay in uu ka soo raacay qaybta hoose ee wiishka isagoo u socday lambarka 11aad ee dhakhtarkiisa uu fadhiyo. kadib waxaa dhacday in wiishkii uu gadaal u soo laabto sida uu isagu sheegay ilaa uu ka yimaado lambarka hoose ama lambar 1 oo bartii uu ka soo kacay ah. waxaa sidaas sheegay ninkan oo u waramay BBC-da. waxa uu intaas ku daray in markii uu halkaas yimid wiishkii damcayna in uu iska furo uu iska furi waayay. waxa uu halkaas ku dhex jiray galabnimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Isniinta. ninkaasi ayaa la ballansanaa dhakhtarka isaga oo ka cabanayay dhabar xanuun kadib markii uu suuliga ku dhex dhacay. ninkan waxa uu ka sheekeeyay wixii argagax lahaa ee ku dhex qabsaday halkaasi iyo cabsidii uu la kulmay. ninkan oo la hadlay warbaahinta caalamiga ah ee BBC-da ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horeysay oo uu damcay in uu iska furo wiishka uu ka furmi waayay uu damcay in uu la xiriiro xaaskiisa. waxa uu sheegay in xaaskiisa lambarkeeda uu u dhici waayay. sidoo kale waxa uu sheegay in uu tijaabiyay lambaro badan oo markaasi maskaxdiisa ku soo dhacay. waxa uu sheegay in qadka oo xumaa awgiisa uu u dhici waayay telefoonkii. waxa uu sheegay in uu la kulmay argagax xoogan isaga oo sheegay in uu isiri ma dhima rabtaa. ninkan ehelkiisa ayaa markii hore waxay u maleynayeen in uu shaqada ku maqan yahay, balse markii ay saacadaha sii dheeraadeen waxa ay la xiriireen booliska si ay u wargeliyaan maqnaanshihiisa. ninkan oo 59 jir ah waxa uu sheegay in cidna aysan fahmin in halkan uu ku dhex xiran yahay xitaa xaaskiisa oo ka shaqeysa gudaha cisbitaalka. waxa uu sheegay in uu garaacay wiishka ama sanqar kasta uu yeeriyay si dadka halkaasi maraya ay u dareemaan in qof halkan uu ku dhex xiran yahay. waxa uu sheegay in uu garaacay lambarka degdega ah ee ku dhex qoran wiishka. waxa uu sheegay in si degdeg ah aan looga jawaabin cabashadiisa. ugu dambeyntii waxaa la keenay 3 shaqaale ah oo kuwa cilad bixiya wiishashka marka ay cilad ku timaado ah, waxaana laga soo saaray ninkaasi halkaasi 42 saacadood kadib. waxa uu sheegay in taasi ay ahayd dayac lagu sameeyay. booliska oo farageliyay arinta ninkan ayaa xabsiga u taxaabay 3 nin ee cilad bixiyaasha ahaa kadib markii ay ku soo eedeeyeen in waqti hore ay ka jawaabi waayeen cabashadiisa. qaar ka mid ah madaxda wasaaradda caafimaadka ee dalka India gaar ahaan koonfurta India oo ninkan uu ku soo jeedo iyo dhaqaatiirta ku sugan cisbitaalka oo ay ugu sareeyaan madaxda cisbitaalka ayaa ninkan raaligelin u diray. waxayna sheegeen in ay ka raaligelinayaan dhibtii ku dhacday maadaama 42 saacadood uu halkaasi ku xirnaa. ninkan ayaa si degdeg ah loo dhigay cisbitaalka waxaana hadda laga daweynayaa fuuqbax degdeg ah oo ku soo booday.